السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Soomaali weyn meel kastoo caalamka jirta waa salaamay. Maanta kilibkan waxaan u bixiyey Muqdisho iyo maanta oo Jimco ahayd. 22 bisha 12 2013 maalin Jimco bay ahayd. Waxaan ku tukaday masaajidka weyn oo ku yaala airport agtiisa oo cusub oo la yiraahdo Sheekh Cali Jimcaale. Masjidka Sheekh Cali Jimcaale oo aad u weyn oo runtii markaad masaajidkaas agaarkiisa aad tagtid aad jeclaanaysid magaalada Muqdisho dhan inay saas noqoto. Ilaahay waxaan ka rajeynayaa magaalada Muqdisho xilli aan fogeyn in ay saas noqoto, dadkeedu gartaan oo dhaqaalaha ay haystaan waddankooda geliyaan oo amni iyo istiqraar Ilaahay Soomaaliya subxaanahu wa ta'aala Soomaaliya siiyo meel kasta ay ku joogto ay ku nooshahay. Masaajidka maanta khudbo aad iyo aad u qiimo badan baa laga jeediyey. Khudbadaasaan rabaa inaan waxay ka yiraahdo kadibna waxaan rabaa masaajidkaas inaan xoogaa isaga ku hormaro. Masaajidkaas macluumaadkan ka hayo wadaadka iskale Burmuud ayaa u dhisay baa liya aabihiis u dhisay Sheekh Cali Jimcaale. Waxaa ku kacday baa liya 12 milyan masaajidkaas ku kacday. ilaa muddo 6 sano ah ayaa dhismihiisa socday masaajidkaas. Agagaarkiisa iyo masaajidka waxaa laga dhigay waxaad moodaa inaad joogtid mar waxaad moodaa inaad xarabkii iyo Sacuudiga joogtid, mar waxaad moodaa Turkiga inaad joogtid. marka geedaha lagu beeray iyo qaabka loo design gareeyay perfect qurux badan. Ilaahay wax ka rajeynayaa saan horay ugu duceynay Soomaaliya inay saas gaadho oo waliba magaalada Muqdisho maskaxda Soomaaliya madaxa Soomaaliya ay qurux badnaato ay Soomaaliya qurux badnaato. Ilaahay subxaanahu wa ta'aala saas ka dhigo saas ugu duceynayna. Wadaadku bar fiican buu jeediyay maanta oo uu kaga hadlayay dhibaatooyinka maanta Muqdisho ka jira dhinaca akhlaaqda dhalinyarada soo kacaysa iyo xeebta anigu waa tegey. waa ula socdaa waxyaabaha xeebta ka socda. Dowladda uu la hadlay oo dad badan dowladda ka tirsan qaybada ku doon masaajidka ku tukaday maanta oo la hadlay mas'uuliyaddaas inay ka saaran tahay oo wax ka qabtaan oo arrintaas u xumaan oo dhalinyarada soo kacaysa oo aad iyo aad xumaantu ugu soo faafayso xeebta Liido maalinta Khamiista ee Jimcaha ah iyo maalmaha kale habeenada kale fiidka marka la gaaro waxaad arkaysaa qayb ka mid ah dadka Soomaaliyeed baa kuraas dhigta oo ku sheekaysanaya oo shaah ku cabahaya oo nolol qurxoon ku qaadanaya oo badda nacawd ku nacawsanaya oo familkooda qaar wataan oo qaar shaqadooda ka soo baxeen oo yimaadeen oo halkaas fadhiyaan oo nimco iyo wanaag fara badan baa ka muuqda. Qayb ka midana fasaad bay wadaan oo waxay sameeyaan magaalada geeskeeda ayaa waxay sameeyaan dhalinyaro hoos iska jirto oo gabdhiyo wiilal yaryar oo aad iyo aad qaab darro badan wada ayaan ku arkay. Suuqa maanta waa sheegay wuxuu kaloo sheekhu maanta ka sheekeeyey dhibaato iyadana masaajidda farakula ku haysa wadamadaas Kanada iyo Mareykan iyo Australia iyo Yurub markaa tagtay dhalinyaro badan soo ciyaartay ama soo kaysiinaysa dadka caddaanka ah oo mariyo iyo funaanado ku dhaggan wata oo masaajidka soo galahaya ama surweel dabagaab ah masaajidka la soo galahaya oo looyaha ka sarreeya markuu foorarsado markaas sheekhu era ka soo dhisaanayo mar uu u foorarsado funaanadana kor u kacaysa surweelkana hoos u dhacaya markaas dooshiisa waa muuqato dooshiisa baa soo baxaysa. Marka joojiya dhalinyaro iyo qaabkaas hoos xun dadka ka dambeeyay sax ka dambeeyay fasaadinina salaada fasaadin sababta salaada shuruudaha laga rabo xakameyn sida raacay awra inaad awraada qarsatid baa kamid ah shuruudaha salaada inaad dhar haysatid dhar fiican gashatid oo awraada asturtid baa kamid ah shuruuda salaada marka tukanaysa laga rabo. Saayir masaajidka ka sheegay masaajidka salaad Jimcaha maanta sheekhu wuxuu akhriyay khudbo runtii qalbiga taabanaysa ayaa ka muuqato inay daacad ka tahay dhibaatada meesha ka jirta iyo ay ka mid tahay fuqshigaas qeybaha ka jira hoteelada kuwa dhalinyarada labiska jaaga xiiranimada rag waaweyn oo dowladda u shaqeeya xitaa uu sheegay si dhalinyaradii kala tugo inuu jaaga xiiran yihiin. Dowladdu uu la hadlayo dadka mas'uuliyadda ka saaran tahay oo dowladdu qaybadeeda kala duwan oo arrimaha anshaxa ku xil saaran inay hawshooda qabsadaan oo ay arrintaas ka digtoonaadaan si ay safarada Soomaaliya u sii soconin ama dhibaatooyin kale soo dhicin. Masaajidku masaajid aad u qurux badan weeye saan ku sheegay Soomaaliyeed waddankeena ku soo noqda dhalinyaro badan baa ku arkay oo dibadaha ka soo noqotay qaar anagu aan Kanada ku arki jiray baan meesha ku arkay maanta oo joogay oo sawirro ku galahaya waan isku salaamay halkaas. Waa meel qurux badan Soomaaliya oo dhan waa laga dhigi karaa. Ilaahay waxaan ka rajeynayaa marka magaalada Muqdisho iyo Soomaaliya qaybaheeda kala duwanba inay dadkeedu u kacaan oo ay burburka iyo isdilka iyo qabyaaladda iyo jafaysiga ka gudbaan ay waddankooda saas masaajidkaas uu sheekhaas u dhisay ama meelaha kale oo isagu business u leeyahay sida meelaha Burmuud ay leedahay oo dhan dhismayaasheeda oo dhan makhaayadaheeda meelaha businesska
meelaha iyadoo ay dhistay sida daar es salaam oo kale nolol baa ka muuqata waxaad moodaa marka soomaaliya qof shiikaas oo kale fikirkiisa oo kale aaminsan inuu madaxweyne ka noqdo oo wasiir ka noqdo oo dhaqaalaha dadka laga soo aruuriyo gacanta ku qabto oo si xor iyo xalaal oo wanaagsan nadiif oo transparency u gudbiyo oo wax ugu qabto dadka soomaaliya baa ilaah ka rajaynaynaa intaas waa maanta iyo jamcihii waxaan kusoo arkay runtii markaan masaajidka tegay waana la baaray waa fiican yahay amnigu in la baaro waa fiican tahay laakiin ilaah waxaan ka rajaynaya inaan ka gudubno in aan gaarno xeer masaajidda laisku baaro masaajidkii labaad oo lagu baaray buu noqonaya masaajidkaas hadda ka hore masaajid boosaaso ku yaalla baan tegey markaasaan lay baaray marka waan yaabay waa ka rajay dhowr 8 sano ka hor bay ahayd maantaas waa nala baaray masaajidkan lagu baaray amniga iyagii baa la sugay oo la fiiriyey wax dhibaataa maana arag dad fara badan baa ku tukanayay maasha allah marka intaas kusoo koobahaya waddankan kusoo noqda nabad baa jirta khayr badan baa jira waddanku waa fiican yahay ciyaalkiina soo celiya waddankeena imaada iimaansada masaajidda haddii isdilka iyo iska horimaadyada iyo masaajidda in laga boqo waxa laga gudbo soomaaliya waa soo noqonaysaa qurux bay noqonaysaa qofka muslimka ama soomaaliya intuu masaajid aado in la baaro oo baqana dhibaatada soomaaliya ka jirta kamid tahay dad masaajid wax ku leynahaya masaajid dhexdiisa salka hore ku leynahaya in laga waantoobo oo dadka culimada leyntooda iyo dad masaajid ku jira leyntooda laga waantoobo oo dadka soomaaliya ay madaxooda fiicnaado oo qabyaalada iyo jafaysiga iyo isdilka iyo sida khaldan wax loo fahmay wax dhan laga gudbo baa ilaahay ka rajaynaynaa wasalaamu calaykum